Rasmus Baladoon oo ah nin ay biyo dhigtay nacaybka diinta Islaamka isla markaana dhawaan gubay kitaabka Quraanka Kariimka ah si uu muujiyo nacaybka gaamuray ee uu hayo dadka muslimiinta ayaa waxa arintaasi ka dhashay rabshado waaweyn oo ka qarxay magaalooyin badan oo ku yaala gudaha dalka Sweden tan iyo Khamiistii isbuucii la soo dhaafay gaar ahaan magaalooyinka ku yaala koonfurta dalkaasi waxaana ka dhashay khasaare isugu jira maal iyo waliba 40 qof oo dhaawac ah oo 26 kamid ah yihiin ciidamada booliska sidoo kale waxa la gubay hanti fara badan ninkan xaq jirka ah ee u dhashay dalka Denmark ayaa da'diisa lagu sheegay 40 jir wuxuuna hore u ahaa qareen ku caanbaxay nacaybka xad-dhaafka ah ee uu qabo Islaamka wuxuuna ahaa aasaasihii xisbiga garabka midig ee fog ee cunsuriga ah ee lagu magacaabo Stram Kurs ee 2017 laga hirgeliyay dalka Denmark waxay kala warbaahintu sheegtay in Baladoon uu safka hore kaga jiray kooxihii ugu xaq jirsanaa ee sida weyn uga soo horjeeday Islaamka iyo muslimiinta ku nool Denmark 5 sano ee la soo dhaafay isagoo had iyo goor taageerayaashiisu ay abaabulayeen shirar iyo isu soo baxyo lagu aflagaadeynayo diinteena Islaamka iyo waliba soo bandhigida gubista Quraanka Kariimka ah oo marar badan oo hore abuurtay mudaharaadyo rabshado wata oo ay muslimiinta halkaas ay uga soo horjeedaan falkaasi sidii hore uga dhacdayba xaafadaha ay jaaliyadaha muslimiintu kaga nool yihiin caasimadda Copenhagen ee Denmark sanadkii 2019 ninkan xaq jirka ah ayaa falalka noocan oo kala ah ka geystay magaalooyin badan oo Yurubta ku yaala kuwaas oo qayb ka ah ololihiisa ballaaran ee uu ku fidinayo diinta Kiristaanka taas oo caqabad ku ah muslimiinta soo galaya dalalkaas waxaana had iyo goor hareer socon jiray ciidamo bileys ah oo sugaya amniga goobahaas ay falalka guracani ee islaam nacaybku ka socdaan waxa uuna isagoo cabsoonaya marar badan warbaahinta ka sheegay inuu yahay nin cabsi badan ay la soo daristay kadib markii uu howlahan bilaabay haatanna uu yahay qofka loogu raadinta badan yahay Denmark dhowr jeer oo horena waxaan ka badbaaday buu yiri weeraro lagu soo qaaday habeenkii oo dhanna ma seexdo waxaana inta badan xidhaa jaakad aanay xabadu karin si naftayda aan uga ilaaliyo buu yiri dadka Islaamka ayaan gubay Quraankooda Kariimka ah waxa kale oo intaasi dheer in ninkani sidoo kale uu hore u taageeray sawir gacmeedyadii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee lagu aflagaadeynayay bishii Sebtembar 2005 laguna daabacay joornaalkii lagu magacaabi jiray Jyllands-Posten ee ka soo baxa dalka Denmark kaasoo dalka galiyay xaaladii ugu xumeyd ee abid soo marta taariikhda dalkaasi sida uu wargeys ku sheegay dadka fikirkayga diidan iyo xorriyadda hadalka waa inay dalka nooga baxaan ayuu yiri marar badan uu ku celceliyay isagoo uu arkayada diimaha ama nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee inay tahay kuwa la banaysan karo hase ahaatee saxaafadda Faransiiska ee warbixintan qortay waxay ku tilmaamtay ninkan xaq jirka ah ee lagu magacaabo Baladoon inuu yahay nin dandaansi badan oo doonaya inuu afuufo ama uu dalka ka shido dabaylo ama duufaan islaam nacayba sida uu hadda ka hor yeelay 11 bishii November 2020 markii lagu xiray magaalada Paris isagoo qorsheynaya inuu Quraanka ku gubo mid kamid ah wadooyinkaasi maalintii xigtayna dalka Belgium ayaa iska fogeysay ninkaas una diiday inuu dalkeeda soo galo xilligaas oo isku diyaarinayay inuu ku gubo kitaabka Quraanka Kariimka ah magaalada Molenbeek ee carliga Belgium taageerayaasha ninkan ayidsan waxay dhankooda u arkaan inuu yahay haliyey iyo nin la diriraya Islaamka waxayna ugu yeedhaan rajada iyo ilaaliyaha reer galbeedka balse dad badan oo kamid ah reer Yurub wuxuu ninkan u yahay ama ay u arkaan nin cunsuri ah ayna ku weyn tahay nacaybka diinta Islaamka waxaana hubaal ah oo aan la iska indhatiri karin oo taa cadeyn u ah ficiladiisa guracan oo laga dheehan karo muuqaalada bartiisa YouTube-ka ee uu ugu magac daray Voice of Freedom halkaas oo uu ku faafiyay muuqaal ay daawadeen in ka badan 25 milyan oo qof wuxuuna kaloo ninkani hogaamiye ka ahaa xisbiga Stream doorashadii 2019 ee dalka Denmark ka dhacday halkaas oo uu ku helay 1.8% codadka balse xisbigiisu ma awoodin inuu xataa hal kursi ka helo baarlamaanka waxaana 2020 mar kale muddo bil ah lagu xiray Denmark kadib markii lagu eedeeyay falal cunsurnimo wargeyska Le Point ayaana ku tilmaamay ninkan mid islaam nacaybku ay ku fogtahay iyadoo sidoo kalena xustay in sanadkii 2020 uu qaatay dhalashada dalka ay jaarka yihiin Sweden si uu hogaamiyo dagaalka uu kula jiro Islaamka kadib markii uu sida uu sheegay aad uga cadhooday siyaasadda dalalkaas ee dhanka qaxootiga taasoo uu arko inay tahay arrin halis ku ah Denmark iyo Sweden dhanka kalena dalal badan oo caalamul islaam ah ayaa dareen hoose kaga falceliyay dhacdadaas waxayna qaar kamid ah wadamadaas iyo ururo islaami ah ka soo yeeray dareen ay aad uga xun yihiin ficiladaas ka socda Sweden uu ninkani kiciyay waxayna soo jeediyeen inay bilaabaan olole ballaaran oo ay ku qaadacayaan wax soo saarka iyo waliba badeecadaha dalka Sweden waxayna tani horseeday in 14 wadan iyo ururo islaami ah ay soo saaraan bayaan rasmi ah
oo ay ku cambaareenayaan dhacdadaas, kuwaas oo kale ah Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Falastiin, Masar, Ciraaq, Iiraan, golaha culimada sare iyo ururka muslimiinta adduunka iyo ururka culimada Falastiin. waxayna ku tilmaameen gubidda kitaabka Quraanka Kariimka inay tahay mid fool xun oo daandaansi ku ah dareenka shucuubta muslimiinta, cunsuriyadda iyo nacaybka islaamkuna ay hurinayso nacayb iyo colaad khatarna ay ku tahay nabadda iyo weliba wada noolaanshaha. si kastaba ha ahaatee, bayaanadaas guud ee lagu dhawaaqay dhammaantood ma aysan helin jawaabo diblomaasiyadeed oo adag, balse waxay u ekaadeen oo keliya hadal warqad lagu qoray, marka laga reebo oo keliya hadalkii kulaa ee ka soo yeedhay ururka Taliban ee talada Afghanistan haya, kuwaasoo ka digay in lagu soo celiyo falal noocan oo kale ah ay wax u dhimayso dareenka muslimiinta oo horseedi karta ficillo aan la mahadin doonin. waxayna wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ka dalbatay mas'uuliyiinta Sweden inay la xisaabtami doonaan dadka ay ku tilmaameen xag jirka ee ay ku weyn tahay islaam nacaybku. Imaaradda Talibanna aysan marnaba ogolaan doonin in la xumeeyo xurmada islaamka. dhanka kalena, baraha bulshada ayaa si weyn ula falgalay ololahaas ballaaran ee lagu joojinayo in la iibsado wax soo saarka dalka Sweden, waxaana dadka sida weyn uga dareen celiyay arrimahaas ku eedeeyeen dowladda Sweden inay taageerayso ololaha nacaybka ee ka dhanka ah bulshada muslimiinta, iyagoo ugu baaqay dalalku inay go'aan adag ka qaataan inay sii socdaan falalkaas lagu gubayo Quraanka Kariimka ah ee soo bilaabatay bishii Ramadaan. waxay kaloo ku booriyeen in muslimiintu guud ahaan ay qaadacaan wax soo saarka Sweden, isla markaana ay cambaareeyaan falalka foosha xun ee taabanaysa dareenkooda, waxayna soo jeediyeen liis ay ku jiraan dhammaan magacyada badeecadaha laga soo saaro dalkaasi, iyadoo ay jireen saameyn hore oo la mid ah tii hore uga hirgashay dalka Faransiiska si weyn u taabatay kadib markii gabi ahaanba la cunaqabateeyay wax soo saarkii dalkaasi. marar badan ayaa falal noocan oo kale ah soo noqnoqdeen, waxaana jira dhibaatooyin badan oo ay wajahayaan jaaliyadaha muslimiinta ee ku nool dalalka reer galbeedka, taasoo ay ugu wacan tahay maamulada talada haya inay xagaldaacinayaan raallina ka yihiin arrimahaasi. isbuucii la soo dhaafay ayay ahayd markii mar kale ay dowladda sahnuuniyaddu weerar ku qaaday masaajidka Al-Aqsa, waxayna dhacdadii ka dhacday Sweden sii kordhinaysaa cadaawadda iyo nacaybka loo hayo muslimiinta. taasina la yaab ma leh oo cunsuriyiintu waxay ka siman yihiin nacaybka, mana jirto qof muslim ah ama dowlad islaam ah oo ka nabad gashay dhagartaas ay maleegayaan reer galbeedka iyo weliba dadka islaam nacaybku madax maray. weerarada ka dhanka ah islaamka iyo muslim nacaybka ayaa si weyn uga socda qaaradda Yurub, waxayna haatan maraysaa in dalalka Faransiiska iyo musharaxiintoodu ay ku tartamaan ololaha islaam nacaybka, halka dalka Hindiyana ay ka socoto weeraro aan noociisa hore loo arag oo ka dhan ah wax kasta oo la xiriira diinta islaamka. Yasir al-Satra oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda waxa uu dhankiisa bayaamiyey xasuuqa iyo nacaybka tooska ah ee aan hore loo arag ee lagu hayo meelaha barakaysan ee muslimiinta oo ay ka mid tahay Baytulmaqdiska, taasoo ay u sii dheer tahay nacaybka muslimiinta ee heerkii ugu sarreeyay ka gaadhay dalalka Yurub sida Sweden, Denmark, Faransiiska iyo weliba dowladda Hindiya, muslimiinta Uguriska ee Shiinaha iyo meelo kaleba, isagoo ku nuxnuxsaday in arrintani ay muujinayso habacsanaanta ku yimid nidaamka iyo dowladnimada Carabta iyo Islaamka caalamka oo dhan, xilli ay soo ifbaxeen khilaafyo badan oo dhexdooda ah oo horseeday inay cunsuriyiintu uga faa'iidaystaan. waa barnaamijkeenu xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.